munaasabad lagu dhaarinayay xubno ka mid noqonaya mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulkaasi iyo golihiisa wasiirada iyo waliba golaha odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale ayaa waxa ay ka dhacday madaxtooyada maamulkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya ee magaalada Baydhabo waxaana kulanka maanta lagu dhaariyay 82 xubnood oo ka mid noqonaya golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyagoona ku dhaartay in ay daacad u noqonayaan qaab dhismeedka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee 6 gobol uu ku dhisan yahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa dalka dadka diinta dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay wallahi billahi billahi tawfiiq guud ahaan xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ka kooban 135 ayaa maanta la dhaariyay 82 ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyadoo maalinta beri ahna la sheegay in la dhaarin doono inta ka harsan dhaarta kadib ayaa gudoomiyaha labaad ee golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya Suldaan Siraaj Aadan ka hadlay isagoona la dardaarmay mudanayaasha cusub ee maanta la dhaariyay ay ka kooban yihiin 135 xubnood hase ahaatee ay hadda soo xaadirtay 81 sidaa daraaddeed waxaan bilaabaynaa dhaartii waxayna u dhici doontaa sidaad arki doontaan hadduu Allah awoodda ogolaado waadna mahadsantihiin ugu dambeyntii ayaa munaasabada dhaarta waxaa hadallo dardaar ah oo dhinacyo badan taabanayay ka soo jeediyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Madoobe Nuuno Maxamed ilaa hadalkiisa deegaanka sidoo xildhibaan waaye sida nidaamka sheegow qaybteen ka horeeyay ka tirada badan ay tahay meelo kale in la dhaariyo xaq waaye xubnaha banaanka ruuxa ama dalka la jiraan oo wali haadirana si degdeg ah in la dhaariyo beeraha dhiman tiradana in hadii biyaayona dadka aragtay ahaan ama saamiixan aan deeri araga haytaan wali meel maraayta meel ka dambeeyay intigalaha garsoorka yani heri tiirka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya yaana marba insha Allah taala wal magacaawdoona kadibna baarlamaanka aan saheelaha kan inta fadhiyo yalla horsheeno doona hadii Ilaahay halka nagada sidaas ka dhamaystirno doonta dhismaha dowladda koonfur galbeed taas hadii aan ku gudido la socotaan dowladdu ma dhisani oo shacabka dhisani oo dadka dhisani shalkooda inta gobol oo geedka xaadirka ay meelun dadka Ismaaciilkooy dadku aragtooy dadku kooy gada dadku kooy shabeellaha hoose dadku kooy boqol iyo Baydhabo dadkiiba ka jaraan golihii guurtada ka jaraan golihii wasiirada ka jaraan golihii baarlamaanka ka jaraan shaqaalihii dowladda shaqo sugiyaal la roogaan xogeynta jijarka ciidamadii kuleeyihiin oo marti sharaf ay roogaan korsho in dad kaleeto una nidaladi oo una niaftirsadayaan go'aan ka qaadaan armaan dadkaas marti geliyo heshiiska shalay hada fartana sidoo waaye magac la qaado korno waaye godob la gala korno waaye hadii una shacab weynaha koonfur galbeed Soomaaliya guud ahaan dadsadada way dadku dad isla la way dowladdu yoona wada dhisdeen yoona ka taliyayaan hadii yoo qaadayaan waxor hadii oo kale kadaan shan hadii oo kale kadaan li arriyo inta la way go'aayo qaadaan way nasiibkii oo iskale go'aankii oo leh iskala go'aamay ku jirto in nasiibka umudun oo kamintna in difaacna in همين معناها نجدنا كونفور قلبيت صوماليا أو كوبا اللي تقبل هنواتو هذا بين hase yeeshee dhaarta maanta la dhaariyay xubnahan ka mid noqonaya baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu saleeyay beelaha dega 6 gobol koonfur galbeed ee Soomaaliya ee maamulka u dhisan yahay Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo